gudoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya mudane Cabdiqaadir Shariif Sheekuna Meeye TV-ga koonfur galbeed Soomaaliya oo ku warbiyay safarkii uu ka saaday caasimada koonfur galbeed ee Baraawe dhanka kale gudoomiyaha sheegay inuu heshiid dhikeen mashruuc horumarineed oo aan baahanayeen shacabka ka dhaqan magaalada Baraawe socdaalkii howleed aan ku tagnay anigii waqtigii heer wasiiraha magaalada Baraawe haddaan wax yar faahfaahin idinka sii runtii Baraawe saad la socotaan waa caasimadii dowlad goboleedka koonfur galbeed la rabana marka mustaqbalka dhow in xukuumadda iyo golaha sharci dejintuba in ay ka howlgalaan marka waxaana hadda socda qorshihii iyo diyaargarowgii qaabkii marka xawaaye loo diyaarin lahaa meelihii xukuumadda ay ka howlgeli lahayd wafdigaas aan horkacay waxa ay ka koobnaayeen dhowr wasaaradood ugu horeyso wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka wasiirka oo ujeedada socdaalkiisa ugu weyn ay ahayd inaan soo aragno xaaladda iyo halka ay marayaan qorshihii iyo mashruucii lagu dhisaayay garoonka diyaaradaha ee magaalada Baraawe runtii waa waxna farxad geliyay shalay markaanu tagnay muddadii yareed ee gaabnada Baraawe ka soo maqnaa u dhaxaysay markii aan mashruucaas anaga aan soo dhagax dhigay ilaa hadda runtii waxaan ugu tagnay in hawshu ay aad u socoto dhul aad u baaxad weyn oo markiisii hore ahaa dhul adiga markaan tagnay aan dhagax dhigaan u tagnay dhul kayn iyo dhir ay ku taale u baahnaa marka in la jaro la geed qaado marka runtii muddadaas yar oo gaaban hawl aad u badan ayay ka qabteen runtii fursaddan waxa waaye anoo kaga faa'iideysan runtii waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo runtii ciidamada nabad ilaalinta AMISOM ee jooga magaalada Baraawe oo aysan hawshoodu ka ekaan oo keliya sugidda amniga goobtaas bal xitaa gacan ka geystay in ay hawshaas inay gacan ka geystaan ugu deeqay qalabkooda mashiinadoodii gaar ahaan cagafcagafyadoodii inay la howlgalaan shirkadihii oo dhismaha meesha ka shaqeynaya ujeedada labaad ee safarka waxa weeye markaan ka soo tagay midaas garoonka ugu weheliyay safarkaas wasiirka wasaaradda gaadiidka badda iyo dekedaha isagana ay ahayd inuu soo qiimeeyo xaaladda ay ku sugan tahay Baraawe dekedeeda iyo gaar ahaan in ay suurtagal tahay tan iyo inta marka deked ay yeelata magaalada mashruuceeda haddeertaanba iyo waanwaanteeda iyo wadahadalladeeda iyo socdaan inta laga helayo runtii deked dhismaheedu wax sahlan maahan maalin iyo laba maalmood ku dhismaayo gabagabada waliba uu sabaaq andiray inuu shacabka ka dhaqan caasimada koonfur galbeed iyo ku qayb qaadaan dhisida Baraawe marka aniga waxaan dhihi lahaa shacabka Soomaaliyeed ee ka soo jeeda deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ilaahay uu khayraadkaas ku manaystay in ay ka faa'iideystaan isla markaasna wax allaale wixii maalgashi ah mashaariicda lagu horumarinayo deegaanadan inay gacan ka geystaan ama inay ayaga horseed ka noqdaan ay ku soo hagaan ku soo xiraan dadkii marka mashaariicdaas waxa waaye maalgelin runtii deegaanadan saad la socotaan waxaa jira khayraad kala duwan oo ilaahay uu ku manaystay hadday noqon lahayd dhanka badda iyo berrigaba maantana waxa waaye marka aad fiiriso waxa waaye mashaariicdaas oo sidii loogu talagalay loo hirgeliyo looga faa'iideysto khayraadkaas waddanka ku jira lagala soo baxo runtii waxay gacan weyn ay ka geysanayaan dib u soo celinta iyo dib u hanashadii ee amniga runtii amni darrada maanta waddanka ka jirta hal shay ayaa inta badan marka la fiiriyo oo laisku raacsan yahay dadka intooda badan inay sabab u tahay waxa weeye amni darrada waxaa keena waxa waaye shaqo la'aanta baahsan iyo fakriga macnaha qofka bini aadamka waxa ku jiro uusan haysan hanti noloshiisa ku maareeyo ama shaqo ku filan macnaha inuu ku maareeyo nolol maalmeedkiisa ayaa waxaa la yiraahdaa waxay sabab u tahay amni darrada jirta runtii bulshada looga faa'iideeyo macnaha mashaariic horumarineed loo jeeyo dhanka wax soo saarka shaqooyin loo abuuro runtii waxay gacan ka geysan kartaa in dib loo helo macnaha waaye loogana soo qabto amni darrada hadda jirta amniga oo sugnaado marka shacab weynaha Soomaaliyeed ee ka soo jeeda deegaanada koonfur galbeed waxaan ugu baaqayaa marka in ay gacan ay ka geystaan
hadalka gudoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya kooye xilli muddooyinka dambeeyay uu sii wafduusu hogaamiyo iyo safarka seedaha caasimada koonfur galbeed ee Baraawe Mariin Malaabshir warbaahinta koonfur galbeed Soomaaliya magaalada Baydhabo.